ولا لا يلقفك بين آذنك وحق درجة هذا كركو قضايا إقيم كوية لا ما هالعق ما هن قبيل ما هن علم مادي قدتكم ما أنت أي رن موديان ما هم مادة يدارها اللي قلت ترتميه وحقفك بين آذنك كركو قضايا وإيمانك عملك صالحا. سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أي سوق مقالة مدينة سوق لي يدو صلاة أي دواتي ودتك بعد الردي يا بخاردي يا باقاش لياشي يا دكاندي intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaala ay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugayaan xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaas Umar ibn Khattab wuxuu akhriyay aayada Quraanka ninkii doonaya inuu arko aayadaas rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وأكوا سيقبو ما أنت إنك السوق يدينا ولا ليال مركا لا يدامو سوق مسلمة أو مسلمة مي إن عدانو فرنسيسا هي دين الإسلام كسوق لي سكيت قال لك يعني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimado Soomaaliyada gabadhii buu aabaheedu u yimid oo gabadha waan jeclaaday ii dhisayadna way jeceshahay odaygii baa ku yiri maad islaamta adigu aanu muslim baan ahay buu dhowr sano ba islaam baan ahay hal maalin miskiidka kaama arkine wuxuu yiri marka la aadimo muslimiinta masaajida inta soo galaysa iyo inta haraysa yama badan buu ka yiraahdeer ariyama badan yaa inta haraysa badan wuxuu inta masaajida galaysa ku xiroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogan ku biiray buudi kuwaan ku biiray marka aadaan ku dhacayo la tukanayo kuwa dibadda joogan ku jiraya kuwa soo galaya kuma jira buudi kuma biirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dajiyay ma hayna quraanka ku qornaata maaha ما هين دينتو ميموري أي كوتا الله ما هم قرآنكو إنه أوراق قرنا هذا لوما سود جن قرآنكو واحد الله سود جيء إن دتك نلو سود دينتو أي قرنات صلاة دي بالله نقول فرض يالي وين له لا بقول كبقول مسلمين تو صلاة دينا إلى علينا يام سوان كبالله نقول فرض يالي وين له نقدان مسلمين تو بقول كبقول كوا صومايا قد البصر كله نقول واجبية وين مسلمين تو بقول إنه هو جاي إلى اليام حرام تكدر هذا بالله يدي وين مسلمين تو بقول حرام تكدر هذا وين دتك مسلمين تو أي نقدان ضد إسلام ما دو كشكو يلعب تو ذاك موقت نكيد دونا يقول عمر بن الخطاب وأركو آيات القرآن كأو شقين إيسا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هاي يقبلوا وأكوا أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه إلى بيت الله عز وجل الله أكبر هذا مغلان وعي هيان ودندول كيسدا ودغيين فدونا الليباني قول إلهي يكتي سيت الله جل وعلا قول إلهي باهيا عز يا شرف إلهي باهيا يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها وما قال هذا مكان لقود حد صدور لعذابه لكن مركو أعمال إيمان لي مدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا شنقد هذا كبها قال شنقد ودي جنة هرت إذا كم مغلي حلقة ما حدكم قاعدين شيء برسولك كيوري والله هبينك بلال سيدابو كو سخدي كلتا هبينك فرحه درادد مدحوينا كو اماني مانجركي با كو امانيي اباها با كو امانيي وعيالك اديga ka dhex amaanayay ilmaha marka la yiraahdo farxaya ninka shirkada u shaqeynaya marka la yiraahdana ninkii shirkada iska lahaa ya company-ga lahaa ayaa shaqo fiicnadaada hadalaya markii la yiraahdana farxad buu marka qofkaasi reereyn baa laga dareemaya hadii la yiraahdo wasiirka iyo ministerka ku amaanayayna ka sii daran ba maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam ayaa bilaal kule ya bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada horteeda ka maqlay billahi alaykum habeenka bilaal sidoo ku saxday kula tahay farxad daraadeed sidoo ku saxday muaad habeenkii nabi maxamed maalintuu nabi maxamed muaad bin jabal gacanta uu qabto kulaha wallahi inni la uhibbuka ya muaad ilaahi baan ku dhaartay waan ku jecelahay walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalka waxa leh waa rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam
maaha shakhsi caadiya hadalka qofka leh inan yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nabi maxamed gacantaytuu qabtay uu leeyahay wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay oo maxaa lagu jeclaaday raggaas oo ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweynaa jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysaa ma munaafiq baa jeclaadaad moodi waa muxamed calayhi salaatu wassalaam khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa ku leh yaa mucaad wallaahi innii la uxibuka haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahow meheradayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanulqaal maha waxaad ku leedahay waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkayga igala qiimo badan waxallii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaadda dayacayna wax kastana uu dayici salaadda ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiiba uu dayacay waayo cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii buu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayey qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma mu'min baa mise waa munaafiq mise waa kaafir amaa waxyigii uu go'ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiinaan eegaynaa bui cumar binu khadaab ninka khayrka aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna bui cumar binu khadaab nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiira almu'miniin waatan dawladdii islaamku ballaaratee aniga maad iga dhigtidaa maaragtaane waali maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas'uula oo magaalo maad iga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runta beritoole ii kaalay buu yidhi noodkaan kuu diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya oon amiirkaa ka dhigayaaye nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin oo ciyaalka yaryarna maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkaygii maaha maxaan u dhunkan waaye wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhioo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orodoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weydood u damqani weydood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkiiba boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeenna hargeysa muu biiraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo maa bishii aan maqnaadeen soo noqdoba meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenii sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihii baa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadii baa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumar baa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaarana culimmadaan ku riixaynaa bas aryaa ku riixnaa culummada aanu caalim ma yihiin salaadda caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa
jaahilkaa laga rabaa, taajirkaa laga rabaa, faqiirkaa laga rabaa, madaxweynaha laga rabaa. soonkawana waa la mid. ilaaha soonka faradkaaga dhigay, salaadana faradkaaga dhigay. diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso. inay diin noloshaada ay timaaddo, mujtamaceena diini ka muuqato, dadaal bay nooga baahan tahay. lidaalika zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin. wallaahi umay kala hadhin. cajiib. abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa. ummu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minadoo muslimada ayuu damcay inuu guursado. markaasuu u haasaa u yimid. inaan ku guursadaan rabaa ee ka warran. waxay ku tihi maad islaamtay? markaasuu yidhi may, laakiin diin baan haystaa anu. bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg. markaa bay ku tidhi diinteed haysataa? afalaa tastaxyi, maad xishoonayn bay ku tidhi. maad xishoonayn? diinteed haysataa? ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa? xishoo bay ku tidhi. diin ma haysatid. diin annakaa haysanna. diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam. hadaa huwa diin. markaasuu ka sii jeestay. way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi. hadal macnihiisu ahaa. yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi. haquusan kaalay. haddaad soo islaamtid haddaad soo islaamtid bay ku tidhi. meher iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya. islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi. maxaa gabadha agteeda qiima lahaa? bal ii sheega. ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado. cajiib. oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa? waxba iga dooni maysid, waxba kaa dooni maayo, islaam bas. waa yahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tihi hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay wasalam. markaasaa nebiga loo keenay. markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay. markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo. markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi. yacni hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi. maaragtaane waa kaasa ninka maadaamuu ballankii buuxiyey, anna ballankayga waan buuxiye, waa ninkaygii bay tidhi. abu talxa gabadh cajiib ahayd ummu sulaym. yaa rayta haweenkeennu may gabadhaa ku daydaana. dumarkeennu hadday horumar doonayaan, hadday taariikh fiican doonayaan, hadday ilaahay ridihiisa doonayaan, may haweenkaa ku daydaana, haweenka saxaabiyaadka. abu talxa caloosh uu la aqalgalay, wiil bay u dhashay, safar buu u baxay, uu soo noqday. markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay, uu soo noqday. markaasuu ku yidhi yaa ummu sulaym, ilmahayga yaraa bal iga warran siduu yahay? waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilloonni badan yahee isqabooji bay ku tidhi. xaaji iska naso, safar baad ka timid isqabooji. markuu habeenkii u dharkii dhigtay, u yar nastay, uu casheeyey, gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen, saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey, ayay ku tidhi intay badhida u fadhiisisay, yaa abaa talxa ay dhegayso, su'aal baan ku weydiine. jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya, ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd? maya waan u celin lahayn buu ku yidhi. markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn, ilaahay baa inoo dhiibtay, ilaahay lahaabaa qaatee, anigu waan sabre, adiguna iska sabiro, maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana ka iga soo as bay ka tidhi. taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin, mana soo mari doonaane ogaada. ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mara ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay. uu yaabay abu talxa. maxaa tidhi? waxay tidhi ha walwalin, waa lana bare, tarbiyad baa la baray iyaka. inna lilaahi maa akhada
وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. نبي عليه الصلاة والسلام وحو صحابتي سكدا دعيي صحابيات قبلي سوقه الريان وحو بري وحا إلهي وقادني سقوم باسكله وحان هيننا يسوم بينو ديبتي ورمحمد لنا هينكو ملهد قال انت هو يدا كسو بخدي انه هو يدي كسو بخاي ولا اسلام با الى سوعتي ولا انما الى سوعدي ولا gabdhahayga ila socday mid walba kaligii buu caloosha ka soo baxay kaligiina caalamka uu ka baxaya ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أذيقوا أويا دتكون أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد الشيء مع نبحنا إليهين إلهي أمر قيس إنت ددويدا كنا شهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي سيما أنت دمن يسد هذا دويدا وقبح هذا أديقوا فرحسن دتكون أكتاد أي كبر ورطان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون باسكاله وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بين نور ديبتي يلما هي واكا ميتك واكا سكعسو آسبي كتري لأن مركاسو أبو طلحة رضي الله عنه وحوسمي مركا وحوتك النبي عليه الصلاة والسلام رسول كيف وشاقي مركا أبو النبي كويري أعرستم الليلة يا أبا طلحة حليتو لي ما العروستي وعروس ماذا هيدو حاجيات إسلام هذا حالي ما بركيسي مركاسو يا رسول الله مركان عشيي يدينا أم بركي كذب أي أرنت إيش يكتبوا كيري مركا أبو النبي كويري بارك الله في ليلتكما اسأرقيني حاليتو الله إني بركي أبو كيري اسأرقي حاليتو الله إني بركي هبنكي دعادي با إلهي وأقبلي calooshedii ba habeenkiiba raximka ilmaa u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nabi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nabigu u bixiyey yaa taxniiga nabiga u sameeyey magaca nabiga u bixiyey dhabtii nabi maxamed baa lagu qabto lagu ciyaarsiiyey waxa uu yiri sufyaan bin uyayna waxa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiil culamaa isaguna dhalay ilma barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalay sheegade أولاد بركة يسمو دلي مد برجينا محو دلي مد برجيون بو دلي قبيل بو دلي قبل دلي سياسي بو دلي لكن نك دين بو دلي نك بركة يسن غير دريات بركة يسمو دلي الما بركة يسموها بركة يسوحها ودليلة هبينكم رحمك كل عيب ونبي يقولي بارك الله في ليلتكما اسأرقيني حالة الله إني بركة يوم maalintuu dhashayna dhabta nabi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniiga nabiga uu sameeyey magaciisana nabiga uu magacaabay sufyaan bin uyayna oo ruwaatul hadiis kamid ahana wuxuu yiri 9 wiil culamo ilmihi dhalay buu yiri Allahu akbar hadihi sulaym radiyallahu anha wala layal dadkaas agtooda diinta qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin mahariya marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday إنه أبو طلحة دين الإسلام كسوق له إنه كنا ما أنت مسلم ولا الكينا وقرابته إنه تلكينا أي أكتنا بلا صلاة كل من أيا قارمان دين توشجنا ما تغنى سما مالو ده قارم اسكو قرمتا مركو قف كل دينته مركا ببراروجي ملا عاصي قبرجي سي ملا تجي نعشكي ملا سوق هذا كفنكي ملا سوق جوي بد ريرك ودم بس قبورها يمن معكو قبنا ينوى كاس وارين توقف كنولي على الربا قعنتين لسوق مسكيت كلا كانوا لقوا نقنقضوا لو دعيو لا إكرامه مركز كلا جيو دعوة لقوا صوحرو لا دلقاتو لا صبرو لا كاديو لقى قوسا أنبياء ما قوستان تدين تدال كابين نوقف بهانته كل يعني إن شاء الله دال كدين تما قدونا إن شاء الله ده هذا ورسفي عنه الله إن شاء الله ده هذا دين تدال كيجا هم قدونه ومرك اللي قاعد على وقت جا قيبي وإلهي درت وبح مرك اللي قاعد هذا حاجة دم بها يجن حاجة دم ما تقنا سلانتا مهردا وبتك وحاجة دم به وحاجة دم به فأما من أوتي كتابه وراء ظهره معكو حاجة فسوف يدعو
ثبورا ويصلى معاكو حق إنه كان في أهله مسرورا. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.